annaga ummadda reer Garis inaan u shaqeyno inaan adigana kula shaqeyno oo ballanti aqaade inaan kula fulino maadaama annagana mas'uuliyiintii aade baarlamaanka aan nahay diyaar baan u ahay your excellency taasna waan ka simannahay haddaan nahay madaxda reer Garis wax dhibo dawladda aan ku qabno malahan waana ku garab taagannahay habeen iyo maalin waxaan ka codsanaynaa supplementary iyo wixii biilasha ka yaalo ayadoo hadda recess lagu jiro before 20 insha Allah waan ku dhameyneynaa taasna waxaan rabnaa inaad adiga concurrency-gaaga haddaan noo yeerto 8 habeenimo iyo waqti walba diyaar baan ku nahay your excellency marka ma sii dheereenay waxaan ku wareejini mheshimiwa Mustafa oo deputy speaker-ga ah maanta asaga speaker-ga meeshiisa fadhiya marka waxaan rabaa programka MCS inuu noo soo xiro karibu Mustafa Bismillah. His Excellency the Governor Nadif Jama, Deputy Governor ndugu yangu Abdikadir, the County Commissioner and the security team, the MCAs led by the Majority Leader, CS is present, Odayasha, Ulumada, Mamoinka, Assalamu alaikum. Your Excellency, niko na furaha sana kuwakaribisha hapa Iftin Ward. Unajua wengi hawajui hapa ni Iftin Ward. Kwa hivyo niko na furaha kuwakaribisha na niko na furaha kujumuika na wewe ili nisherekee the birth of this country on its 60th birthday. Your Excellency, siku kama leo ni siku ile Kenya imepata jamhuri na ikasajilishwa katika Jumuiya ya Madola. Kwa hivyo ni siku kubwa hapa nchini Afrika na dunia kwa jumla. Kwa hivyo mimi niko na furaha kusherehekea na wewe pamoja na watu wa Garissa. Your Excellency, tulikuwa na emergency and you really stood firm with your people. In fact, the only leader that is mentioned today by the entire Garissa people ni wewe. Serikali yako imesimama kidete na watu wa Garissa. Tumepata chakula, you fed almost over 3,000 families. Na hiyo tunashukuru sana. Na juzi tuliona ulitembelea hawa jamaa WFP na UNHAS. Sasa tuko na ndege ya kupeleka chakula sub counties. Na nilikuwa nimeona wale mabunge wetu wakiclaim credit hapo. But I want to tell them wamechaguliwa kama Nadif waje wasaidie watu yao. Unajua these people are only seen when senior government officials are here. Juzi CS alikuwa hapa walikuwa na yeye. DP alikuwa hapa walikuwa na yeye. Sasa mimi nashangaa. I just want to tell them that hawa ni vijana wetu na yule msichana wetu na wale wengine wako nominated, they've got duty of care towards their people. Wakuja wasaidie watu yao. Akufae kwa dhiki ndio rafiki. Kwa hivyo mimi nawaambia waje wakuja wasiandike vitu kwa social media. We want them to come and help the people that elected them to where they are. Mheshimiwa Governor, hapa inaitwa Garissa Primary Playground. This is the playground sisi tuko nao peke yake. Na vile ndugu yangu alisema, mimi nilianza kucheza mpira hapa nikiwa class 8. Na hiyo siku hata hiyo nyumba huko wamejenga. Na it is very unfortunate today as a member of the board of this school, I'm reporting that even the enrollment of this school has gone down. Sababu hapa imekuwa ni terminus ya kuja kushukisha chakula, ya kuja kupark magari, and I've talked to the CEO municipality and there is a motion that was passed at the assembly to that effect. Tafadhali tunaomba tuwatafutie nafasi ya kwenda kupark magari zao sababu hii shule enrollment ya wasichana hata imeenda chini. And this is the oldest school in Garissa, I think everybody knows. Ile mtu ajui Garissa Primary si mtu ya Garissa. Kwa hivyo we must protect our public institutions. Encroachment na vitu kama hiyo which has become very common in Garissa has to stop. Your Excellency, na sisi tuko tayari kukusaidia. Your Excellency, wakati wa floods, your government has really stood out to stand with the people of Garissa County. And two people led that drive. The Deputy Governor and the County Secretary, we must recognize them. Walisaidia mpaka wakahakikisha hata zile manjia zimekatika zimekuwa connected back. Kwa hivyo lazima tu recognize.
The county commissioner ofisi yake ilisimama na watu wa Garissa. Security walisimama na sisi. Kwa hivyo lazima tuwa recognize pia. Hiyo naye ni shukrani kutoka kwa Mungu na kazi nzuri ile unafanya hapa. Your Excellency, kuna mama alisimama hapa akaongelea maneno ya maji. Mama Suli comes from my ward. I know where she lives. Kweli hana maji. Saizi tulikuwa umejaribu kufanya kazi ya maji, lakini unajua mahali rada faraska usha maxaa loogu dhuftaa inuu dheereeyo somo shaqo waad qabatay laakiin maxaan rabnaa inaad aad shaqadaa sii ziyaadiso. Mama Suli laba bohol ba hadda noola duray meeshan si biyo badan aan u helno, marka biyahaasna hadda la soo connect garayna insha Allah, mar dhow biyo waan helayna insha Allah. Your Excellency, mwisho kabisa, Regaris waxa way ka sugayaan roobabkan baa naga soo galeen mooyee maxaan fili in arrinta ay dhamaan leed ila maneno ugatuzi na revolving fund kwanza inahitajika saizi tena inahitajika kwa sana, sababu unajua ile mfuriko iliharibu biashara ya watu hapa. Hiyo revolving fund ya kina mama au na vijana itawasaidia, na kazi ile ugatuzi pia, this is when we need it most. Tafadhali fast track that, tuwasaidie watu ya Garissa kama vile unawasaidiaga. Mwisho kabisa, Your Excellency, we are on recess now like all the other institutions in the Republic. National Assembly is on recess, but sisi tumeapa kwa jina ya Mwenyezi Mungu tutafanyia kazi watu wa Garissa. Anytime you need our service, sisi we are handy. Usijali na maneno kidogo ile pale iko kwa assembly, that is within the precincts of the assembly. Lakini sisi kama MCAs, na naongea kwa sauti ya deputy speaker. Unajua deputy speaker akiongea hata hao wanatoroka. Sasa mimi nasema anytime you need the service of the assembly, sisi tuko tayari. Tafadhali just give us a call and we'll be there to support you. Asante sana. Thank you very much. Wakati huu tunamwalika His Excellency Abdulrahman, our Deputy Governor. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Governor Nadif Jama, Governor of Garissa County, our County Commissioner Honorable Chesut, Deputy Speaker of Garissa County Assembly, our executive members, our MCAs, Majority Leader, na wenzetu ambao wamekuwa hapa, our special guest, my good friend Honorable Abdulkadir, maulamas, kina mama, vijana, assalamu alaikum. Your Excellency, langu mimi ni kidogo sana. Ya kwanza nataka kutambua wafanyikazi wa county wa Garissa, executive members who are present, tafadhali tusimame. Mawaziri executive, iko Honorable Hassan hapo wa agriculture, iko Madam Zara wa county affairs, Madam Ebla of education, Mr. Hadi Mohammed Hadi of lands, our county secretary Mr. Mahmoud Balkim, iko chief of staff hapo namuona, iko mtu wa Gawasco wa maji, simama watu wa kuone nani, iko municipality members, iko our able deputy county secretary, iko protocol mtu watu wasimame, tusimame wafanyakazi wa county, tuko wengi sana. So asanteni sana kwa kufanya kazi mzuri. Your Excellency, hii team ambayo nimesimamisha hapa wamejitolea sana wakati wa floods, na mimi nasema wao ni heroes of this county. Wamesupport serikali yako na wamesimama na watu wa Garissa. So Your Excellency, langu ilikuwa tu ni salamu. Leo wewe ndio iko hapa, so mimi wanauririsena mahadi marka Your Excellency, to be honest, iko watu wamesimama sisi wakati wa floods. Serikali kuu, national government ikiongozwa na our good friend Chesut,
na regional commissioner, security team, na of course non-governmental organizations. Our partners stood with us. Kenya Red Cross, I know you will recognize them, and the WFP and other organizations. So tunawaambia asanteni sana. So Your Excellency, langu ni kukaribisha wewe ukuje uhutubie watu wako wa Garissa. So sisi tusimame tafadhali for His Excellency Governor Nadhif Jama akuje address watu wa Garissa. Karibu sana Your Excellency. Sasa unajua. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. Bwana County Commissioner, kwanza nisamehe kabisa, niongee kwa Kiswahili, kwa Kisomali kidogo. Nakaribisha kwanza leo. Let me start by recognizing our able County Commissioner, my friend Chesut, and his team, security team, na pia my Deputy Governor, the county officials ambao wako hapa, of course national government officials pia ambaye wamekuja na sisi, dadka odayaasha akhyaarta oo hadda maanta meesha nala joogaan, hooyooyinka, culamaauddiinka, waalidiinta, iyo sidaad maqasheen maanta halkan waxaa ila jooga nin saaxiibkay ah oo special guest maanta noo ah, oo maanta marti noo ah magaaladeena, saaxiibkay Cabdiqaadir, Mheshimiwa Cabdiqaadir, Senior Council, former Mandera MP. asagana wuu ila salaami doonaa insha allahu tacaala. Marka regaarsa waan ila salaamay, hadalkaygana wuu iska gaabnaan doonaa, maxaa yeele hadalkayga wixii aan dhihi lahaa wuxuu ku qoran yahay khudbaddan, halkan aan kusoo koobay, laakiin haddii aan dhaho waan akrinayaa isagoo dhan ba waqti badan baan naga qaadanaya. Marka waxaan jeclaystay in anigu sheekadayda aan soo gaabiyo, halkaan inagu soo qoro oo iniga akhrisatiin. Soomaalida waxay tiraahdaa hadal badan haan u buuxsho. Soomaalida waxaa kaloo ka maqli jiray waxaasaa la qabtay iyo waxaasaa la qabtay, waxba ma mataraysa, nin kasta wuxuu gooyey ama yaamba waxay gooysay baashada laga dayaa. Marka hadda meeshan waxaa ku qoran hadal yar laakiin oo aad u qiimo badan. Waxaan soo xasuusanayaa 12th of December last year waxaan isugu imaanay Marsabani annagoo oo ka hadlayno municipality cusub ee aan u hagaajinay Marsabani. Maanta sanad baa ka soo wareegay, maalinta ayada ahayd halkaan imaanay. Ilaahay fadligii maanta wax badan baan ka hadli karnaa oo noo qabsano. Marka wixii isaga halkan aan ku soo koobay, biyaha oo kale oo aad looga hadlay, warun oo biyo culeyskeeda waa garanayna, aad ii dhegeysa reer Garissa. Markii aan meesha bilaabaynay last year August, magaalada waxay ku sugnayd nin kasta uu garanaya xagga biyaha, laakiin juhud badan baan gelinay Gawasco, lacag badan baan gelinay. Lacagtii aan gelinayna miraheeda waa la arkay, reer Garissa way ogsoon yihiin. Hadda maalin dhawood aniga oo dibadda jiro ayaa waxaa ii soo galay intaasoo masajya oo ammaani hayaan nin u shaqeeya Gawasco oo la dhaho magaciisa muxuu ya Nuur. Horta ninkan Nuur hadduu meelahan joogo ilaa argo, horta staafkayga weeyaan, laakiin asagoo staafkayga haddana ina dadku aan maanta horkeena waan rabina is Nuur around here. Waxay ninkaas inkastoo oo uu ka howl shaqeeyo idaaradiisa oo meeshan uu fadhiyo CEO-gi uu fadhiyo,
laakiin nuur waxaa u malaysaa waa nin yar oo iska dadaal badan keligii baa waxmana habeenii maalin iska ordaa meeshii dib looga sheego wuu ku orda biyaha dhib orda ma u yaraba meel kastoo adduunka nairobi hadda dadkii degan baa garanaya nairobi dadka waxaa shubtaa gawaarida biyaha lagu shubtaa biyo meel kastoo magaalo kasta oo korayso biyaha dhibkooda maba yaraba laakiin nuur waxaa maleynayaa ajarna wuu raadsanayaa waxaa maleynayaa biyaha dhibkooda uu garanayaa wuu dareensan yahay markaa wuu iska wareegaa miya meesha wax kalaa wuu hagaajiyaa marka anigoo meel iska joogo unbaa intaas oo meeshaas iisoo gala nuur oo la ammaanahayo loo heesahayo waxaa ninka waa nin khatara muxuu ninkan marka nuur haddaad joogtana maqlaysana waad mahadsan tahay haddii kaleana wewe you deserve our appreciation as you are a key staff member of Gawasco marka hadalka Gawasco iyo biyaheeda laba arrin buu ku soo ururaya aniga horta wixii tabarteena ah waan qabanaynaa laakiin laba arrinba way dhibayaan laakiin reer Gaarisna hadda waxaan aad ugu farxay ninkii ah walaalkay Cabdullaahi Salaad markuu meesha aad u dhegeysta Cabdullaahi Salaad wuxuu yidhi dadka xil ha issaaraan Cabdullaahi hadalkiisa wuxuu ku koobnaa mas-uuliyadda aniga kelina ma saarno nin kastoo xil ha isa saaro arrintaa dhegeysta maxaa yeele hadda biyaha oo kale war biyahan lacag bay nagu fadhiyaan dhib badan bay nagu hayaan lacagaha markaa biyaha heshiin bal intii aad bixin kartiin waxaa lacagdeed bixiya horta waa diideen reer Gaarisa inta badan in lacag aad biyo ku bixisiin waa diideen xataa masaajidyaha laga hadlay si kastaa loo hadlay waa la qaylini facebookyaha wax lagu qori laakiin kaale lacag biyo ku bixiya waa diideen taa horta waa culays kale ee iniga aad garanaysiin oo aydan ayaa wuxuu yahay magaaladii oo maalin kasta meel cusub aa kasii degaysiin maalin kasta meel cusub aa lasii degi buula fulaan buula iska deg buula heblaay buula buunda anigu maalin kasta magac cusub aan iisoo qonaa maalin kasta magac cusub aan leeyahay aniga waxaan deganahay buula vumbi aniga buula vumbi oo garan jiriba haddaan maqlahayaba buula vumbi aan dhahaan degnay biilaaman hadda buula vumbi ma jiri jirne buulooyinka aan garan jirne buula kuma jirno gabaa degteen marka waxaa weeye maalin kasta buulo cusub baa lasii degi qaayada waxaa laga bilaaba biilaamana hadda adduunka waxaa la degaa meel la bilaangareeyey oo biyaheeda iyo nidaamkeeda lagu talagalay horta inaad meelihii aad degtiin waa diideen oo la degi jiray meel cusub baad sii furaysiin sabarna ma jiro meeshii sabar wixii maba jiraba marka laba arrin oo culus baan haysataan nahay Gawasco dadkii oo lacagta aan bixinaynin iniga oo meelkaas sii degaysin magaalada sii bilaaranayso marka hana loo samro waa dadaalahaynaa anigu hadda waxaan ogsoon yahay magaaladan ilaa iyo 70% biyaha hadda waa la gaarsiiyey dabcan daadka imaaday culays badan buu noo keenay taa nin kasta wuu ogsoon yahay daadka daraad imaaday culays badan buu la imaaday paybihii buu haleeyey injimadii buu qaaday taa waa iska caadi weeyaan laakiin dadaalka Gawasco wuu weyn yahay waa la wadaa waan la wadayaa hadda ceelal cusub baan furahaynaa new boreholes baan maartay hadda aan muxuu ahaa aan ka shaqaynayna